كادجيسا أنا تاي موادين وما ضو الحياة جرير وحي قبطة سبيشال حسن شيء وقبطة عقدة أدوين محيط عقدة dhibaatooyin badan ay ka tirsanayaan dawladdiisii talaabooyin qaldanaa oo dawladdiisii ay qaaday oo dadka jareerta ku wajahnaa waxaa jiray dagaal beeleedyo dhacayay waqtiguu isagu joogay oo uu madaxweynaha ahaa waxaa dhacaysay in meelaha qaar dadka jareerta ah marka ay dagaal galaan la yiraahdo waa al-shabaab oo diyaarado lagu weeraro oo la soo qabto oo la xiro iyaga oo dagaal beelad weyn u naqaana habka loo xalliyo iyada oo ay mudnayd in dadka lagu xalliyo nidaam dhaxdhaxaada oo dadkii la xalliyo ayaa haddana waxaa dhacay wax ka baxsan arrintaas oo dadka jareertu ay u arkayeen in laga hiilinaayo ayay u arkayeen ilaa iyo haddana markaad fiiriso aragtida dadka jareerta ah ma jecel xasan sheekh maxamuud waana sababtaas halkaas sabab xilligaas ma jareer iyo jalaaca isku dhignaa ama maya waxaa jiray dagaalo ka socday shabeellada hoose shabeellada dhexe oo tusaale ma raba inaan qabiilada qaar magacyadooda sheego laakiin qabiilada dagaalamay marka tusaale haday reer qansax iyo reer qurac dagaalamaan waxa dawladdaas inta badan lagu yaqiinay inay reer qansax taageerto reer quracna tiraado waa shabaab waa haddii madaxweynaha reer qansax uu ka soo jeedo arrintaas marka waxay keentay inay la dhaco hadda waxaan leeyahay madaxweyne fursad haysta waxaad haysataa fursad dadka Soomaaliyeed oo dhan ay kugu jeclaan karaan dadka jareertana ay kugu jeclaan wax la qarqariyo ma aqaan oo qof iska waxaan ahay saafiyo caloosh wax ku qariya aanan jeclayn madaxweyne arrintan waa ku fursad codada jareer calooshooda kugu jirta ay uga bixi karto waxaan rabaa madaxweynaha wuxuu ka soo jeedaa abgaal waxaa jira sheeko Soomaalidu aad isaga qaadato oo la yiraahdo jareer ismaan iyo abgaal ismaan not really wax jira ma aha laakiin sababta loo dhaw waxay tahay dad isu dhaweyna yihiin waxa ka dhacay deegaan waxa ka dhacay dhaqan waxa ka dhacay dhiig xataa marka laga eego dadka kale abgaalka Soomaalida kale way uga dhow yihiin dadkan jareerta oo qabiilada kala duwan leh oo xagga guurka iyo markii la yiraahdo la dhaqanka maxaa keenaya dhiig waxaa jirto dhaliyo inaga guud ahaan abgaal waxaan nuujinay naas dadka jareerta guud ahaan naas ay nuujiyeen gaar ahaan beesha wacaysle ee uu ka dhashay madaxweyne xasan sheekh waxaa dhashay habar hintiro baalcad waa beesha uu ka dhashay xildhibaan maxamed Umar Dalha haweeney jareera dhashay wadadka abgaalko dhan ma wada wadadka waa especially waa isla hadda uu ka soo jeedo madaxweynaha uu ka soo jeedo habar jareera dhashay oo la yiraahdo habar hintira dhashay dadka qaar laga yaabo inay taariikhda qaldaan oo dhahaan jareer ma ahayn jilaa ee waxyaabaha qaar hadda dhaca waxa ka jira kamid ah in qabiil jareer magaciisa la qaataba way ka dhacdaa shabeellada hoose ugu badan tahay koonfur galbeed qabiila inta la soo daga magaciisa la qaata la leeyahay maba ahaba isagii kii saxda ah maahan ana kii saxda ah dadkii tagay isticmaala qaadanay marka madaxweyne labadaas eeg mar si dhaban abti kugu naayo waxay isla daad tahay habar intira ku dhashay marna hadaad abgaal tahay odaygii abgaala naas nuujino islaan jareera naas nuujisay oo iyana duuba oo kamida dadka degan ama la isku dhaho reer shabeelle ee degan kalinka shanaad iyo labada shabeelle iyo hiiraan iyo jubbooyinka dadka degan adoo fursadahaas ka faa'iideysanaya reerkaaga ka duceysanaya xiriirkii iyo dhaliyadii ilaalinaya coddadan jareerna dhaqaaya mudana madaxweyne jareer ra'iisul wasaare ku xigeen waa inaad siisaa waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya